Enderiga, ma cabirta warka kiilo ma warartay maka damba war la weydii horta maxaad ka heshaa ma dumar baa soo kortay warageeda walaadii wuu dhammaaday nin walbo nafta rag warramay baan arkaa dumar aamusan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan walaalahayga Soomaaliyeed inta beeshkayga ku xiran iyo inta magaca Soomaalinimo ay ku weyn tahay oo ila wadaaga. Bacda salaan qiimo yaqaayo mudan walaalayaal maanta waxaan doonayaa sir arrimahan ama xasaasiyadii qormuun badan ka soo shiirayo oo mugdiga ku jirtay inaan cadceeda iftiinkeeda intaan keeno barayna bulshada Soomaaliyeed la wadaago oo fashiliyo. walaalahayga qiimaha yaqaayaha mudan soo dhawaada sirtaas on ka haya cadeymo badan aan ka hayo inta maskaxda caafimaadka qabtay Soomaaliyeed ay ku jirto fikiraysana ay ka waaya qaadan karaan. walaalayaal arrintan waxay ku socotaa inanta la yiraahdo Hana Abuukar iyo Cabdixakiin ninka la yiraahdo isku magacaabay Xerta Sheekh. labadan oo baraha bulshada ku saaxiibay muddo dhawaana ay asxaab ahaayeen laakiinse labadaas oo qoys Soomaaliyeedna asxaab kale la sii ahaayeen. Hana Abuukar oo hooyada Soomaaliyeed qoyska asxaab la ahayd iyo Xerta Sheekh oo aabaha Soomaaliyeed oo qoyska la ahaa asxaab. dhammaanna qoyska iyo labadanba ay qurbo joog wada yihiin dhankay doonaan baa ka joogaane. qoyskii oo go'aan ku gaaray inay u dhambabaxaan ama u jahajiraan dalkoodii hooyo dibna ugu laabtaan. taas oo Carabi ilka Soomaaliyeed dad umadeeda Soomaali Carabi ilka waa isku dhacaan oo Carabkii ilka nin inaag heshiisna ma aha colna ma aha la yiriyo xulufo yar ee aabihi hooyadii heerka ka dhex taagmateen hoose. xulufadii heer intii la isla gaaray ay noqotay inay hooyadii dib u soo laabato maadaama ayada ay ku nooleed dalkii hooyo. ninkan uu qurbo joog uu ahaayo aabaho uu wadiidanaa inuu labada dhinac yaa meel ay u bataan oo ku wada noolaadaan. taasoo dhacday inay haweennu garab waa isisiiyaan asxaabna waxaa loo yahay ceshi madax weeyaane ay Hana Abuukar intay diran Soomaaliyeed u fidisay ay gabadhii ama hooyadii Soomaaliyeed iyo awlaadeediiba qurbihii ku soo celisay dhan ka mid ah dhamanka qurbaha. walaalayaal waraan nigu daalinayna cadeemihiina baraha bulshada hadirtaan nigula wadaagi doonaaye taasoo ay dhacday marka ay dhacday aad iyo aad ehelkiina ay ka cadeynayo meesha arrinta saas inay u jirto aadna aan uga xubnahay aan aniga ahaan aan aad uga damqaday waxay tahay aan qofkii damiir leh Soomaalinimana ay ku jirta uu ka damqanayo nin Soomaaliyeed oo gabar Soomaaliyeed walaashiisa diirka intuu ka qaado baraha bulshada la soo fadhiisanaya halkan bay ayaan ka feednaan jirto xumaantan bay ayaan qabi jirtay. taasoon aad uga mahad celinay baraha bulshada walaalaha Soomaaliyeed oo ku dhaliileen uu ka toobad keenana iska dhigay arrintiina uu weliba sii buunbuuniyay ninka Xerta Sheekh lagu magacaabo. walaalayaal waxaa jirta arrintan nisii wada inuu dad qalata ama ilma xadid iyo balaayo baas oo wixii Soomaaliya iyo dalalka adduunka dhan ka socda kaliyaha ka baxshashada iyo xibnaha bilaadanka ilmaha la waayo oo dal iyo gudaba doonada dhan saameeyay uu ka dhigay tii balaayo cuntadii inay ahayd Hana Abuukar oo Soomaaliya madaxa ka soo taagatay. taasoona uuna u sii reeban uu yiri sidaad la socotiin baraha bulshada markuu ku soo dhigay arrintan uu ka hadlayay koow bilawgii uu dhihi jiray walaalahayga Soomaaliyeed naagtan waa naag ajnabi ah oo Kenya bay ka timid. hor ahaantii asaga waa heer Yemeni saad la socotiin Soomaali dhalad haddaan nahayna walaalayaal midka kale wax naga gala hataa hor ahaantii ma jirtaba ama ahow Yemeni ama ahow Kenyaati laakiin magacay Soomaaliyeed buu meeshaas ismacadii ragga Soomaaliyeed uga dhacaya ninkan. hor ahaantii anisi hoos gala walaalayaal oo nisi faahfaahiye gabadhan Soomaaliyeed waa tii
waati alaboorkii Soomaaliyeed oo xamar ama muqdisho saad u taqaami caasimadii Soomaaliyeed lagu qabtay cadeema maadaama lagu waayana la sii daayay haba ahaatee intaas muusan uga harino wuxuu doonaya maadaama ay hooyadii qoyska ay ilmihii ay fakadeen inay ninkan uu asxaabta la yahay uu garab ku siiyo uu ku ogaado uu ku fashiliyo inta lagu siin doonana Allahu yaclam waa ogtiin Soomaalideena inta badan waay qaari billah ilaahay ka baqaya ma ogiya diintii iimaanka qabee dhunteeni baa luqan weynaatayo sidii haanti baan lacagta u jecelnahay inay biyaha haanta biyaha sida u haystaan jecelnahay lacagteena dhunteena inay u marto war iyo koobkiisa oo kala looban walaalayaal koombana ku jira waxaan ii sheegayaa ninkan oo ilaa hadeer ka harila cidii isku dhacday oo kala fogaatay wuxuu sameeyay dhawaan wuxuu ku ama bixiyay saaxiibkiisa saan la socono qorba joog iska ah inuu yiraahdo aabaha hataga baraha bulshada ama hataga idaacadaha Soomaaliya kamid ah hona kabo aabaha ha soo naadiyo walaalo saaxiibow yaa dadkii Soomaali baraha bulshada intii taageero igu siin jirtay way soo yaraadeen hadalkiina dhadhan waa yeelin waaye anakana waan ka gaari weynay dantii aan ka lahayn si danteeni iyo baraha bulshada ay u kacaan Soomaali dhan taageero nagu siiyaan waxaad sameysaa hon cable gacanta bidixda aabaha ku cuskoodo xusulkiisa waayahay aabihii Soomaaliyeed oo qaladna ka maleegan daacadna iska ah oo awoowo Soomaaliyeed oo hon cable ay war u soo wardoontay wuxuu ku yiri halkan baa 9 bilood run ahaantii 9 bilood hadda Soomaaliya idaacada Soomaali arintan lagu soo hadal qaadan yaa 9 bilood ayaa awlaadii iyo hooyadeeda ay maqan yihiin wiilkeygana dibadda jiraayo waa shaqo u jiraa inankeyga dibadda buu jiraayo shaqo u jiraa taasoo ka caddahay inuu maqan yahay taasoo uu haddana sii sheegayo aabaha waa ni tusin doonaa ayadu muuqaal iyo maqal ah walaalayaal wax walbana cadeynteeda la iska rabaaye yaa Soomaali afka beeja meesha la soo istaagi maaye waxaa jirta walaalayaal inuu aabihi haddana hadalkiisii ku sii socday Allah hadayste waa yeelka ahaa uu yiri anigoo awoogi ah ilmaha aabihii aabaha ahaa ilmaha qoyskeeda waxaan la weysan yahay hooyadii iyo ilmaheedii ana meel iraad aan ku haynin 9 bilood ku dhawaad ama 9 bilood qariiban ah taasoo sii raacsiiyay naag waxaa lagu mutahayaa Soomaaliya ee niga baan bixinay niga hoos tushine lagu mutahayaa naag Hana Abuukar la yiraahdo inay ilmihii qaadatay ay sheegtay uu sii raacsiiyay Hana Abuukar waaya hadda walaalayaal ay sheegtay ku leeyahay awaawgii Soomaaliyeed Allah hadayste iska daacada ay sheegtay yiri ligu sheegay oo sheegtay inay ilmaha baadiye ku noolaayeen oo la samata bixiyay taas meeshaas waxaa nooga cad walaalayaal aan raba inaan iiga jaahil bixiyo waxay tahay waxa Hana Abuukar sidii arinta ninkan uu xarta sheekh ugu haystay maysan hadline goorma xaguu ka keenay awowgan maasha Allah Soomaaliyeed sharafta naga mudan oo waayeelka ah oo wiilkiisa dhaxda u soo xirtay Hana Abuukar hadashay ama wax tiraahday Hana Abuukar waxay tiraahday ma jirto waa xasan sheekha xirta waa sheekha xirta waxa soo hadlay sax walaalayaal waxa hadalka wiilkiisa ugu soo fartay dhaafo Hana Abuukarna yaa arinta la soo ogaaday markaasna ku dhicid iyo lacag hunguri ee kula dagaalo walaashiis asagoo ahaa hadda xakiinka waanisi wadayaa warkay oo walaalayaal cadeynta waxa ka cad marka Hana Abuukar inaysan hadlin awoogan Hana Abuukar waligiis ma arkin ku xiranta huu yiri si wata hadalkiisa Soomaaliya caasimadda Muqdisho walaalayaal Hana Abuukar hadeer ma xirnee markii xirneedaba markii horaaba la rabay arinta in la soo bandhigo hon cable ayaa waqti u waayso soo daahday run ahaantii anaa sheegay idaacadii soo daahday ku xirneed xataa ma dhihin odayga kama warhay xataa in la sii daayo waa hadal loo soo sheegay
oo ka yimaaday Minnesota America ninka xerta sheekh la yiraahdo Cabdixkiino tasbiixda meeshu ka qabsan lahaa baraha bulshada ayaa suuqnimo iyo aflagaado inuu dumar ku aflagaadoodo heer iyo dhaqan ama heer xulufo ka taagan tahay qoys iyo gabadha asxaabta la ahba faraga gashanayo oo meeshaas hunguri lacageed ka raadinayeen taasina iga caddahay walaalayaal mideeda kala jirto oo aabaha Soomaaliyeed uu sheegayo awooga Soomaali sharaftii qiimaha mudan uu sheegayo waxa lagu mutahayaa uu yiri waxa lagu mutahayaa lagu sheegayaa ka dhigan tahay loo maleynaya ka dhiganta Soomaaliga hada sii fasiratiin walaaleyga Soomaaliyeed loo moodayaa inay tahay Hana Abuukar naagta ilmaha la baxsatay oo sii sheegto lagu sheegayo uu yiri la ii sheegay ama loo soo sheegay uu yiri waxa la soo sheegay inay tiri ilmaha baadiye baa ku nooleed baadiye bay ku noolaayeen waa anta babixi ama waa la waan badbaadiye waxaas oo information siiye odayga alin baraha bulshada kuma jireen idaacadan watan ugu horeyso u tagay hona kabale meeshaas ayaan cadeyntan nila wadaagaya walaalayaal mideeda kale ku sii darsaday aabaha ama awooga qiimaha iyo qaayaha mudan oo la marar habaabinayo oo Soomaaliyeed waxay tahay hooyadii ilmaha inay maqan yihiin aabihina uu dibadda jiro shaqo u jiro meeshaasoon aniga aan ku cadeynayo hadalkayga run inuu yahay qoyskan la isku dagaalay qoyskan isku dhaceen ay naagtaana Hana baalkeeda gadaal ka martay naagnimana ay Hana ku caawisay taas igu cimir qaata waxaa jirta walaalayaal walaalahayga qiimaha qaayaa mudanow anaka inuu noo haysto xerta sheekh ninka la yiraahdo ama Cabdixkiin la yiraahdo wuxuu doonaba ha ahaadee ninka Soomaaliyeed waa yeelka maanta inay baraha bulshada Soomaaliyeed dad inay yihiin sidoo CK sheegayay CK ayaan dhaweed wuxuu ku lahaa wax ariyaatihiin dadka waa ariyayihiin igu xiran war anaka ari manihin hadaan baraha bulshada dhinac niga dhageysanana dhagteena siday wax u maqashay maskaxdeena fuurba u tahay ogaada heer YouTube walaalahayga qiimaha qaayaa mudan laba qoyskan aabihi hooyada isku dhacay marka aabihi ama awoogii hadalkiisa yaaniisi wada wuxuu ku astakoodo sii sheegay waxay tahay inay 9 bilood ilmaha la weysan yahay qoyska halkan kuma taalo maanta 9 bilood kadib awooga Soomaaliyeed la gooynayo inantiisa uu inankiisa qabay oo xulufo ka dhaxaysa wax ku heshiin waayeen inay Hana Abuukar afka looga galiyo oo Hana Abuukar afka looga shubo aad iyo aad baan uga xumahay walaalahayga qiimaha qaayaa mudan ila dhageysta asagoo muuqaala anigu waxaan caruurta la sheegayo awoogood baan ahay guriga aynu imika joogno waa gurigoodii aabahood waa ka maqan yahay oo wuu shaqeeyaa oo dabadu jiraa waxaanu ilaahayga ka baryaynaa gurigaasanu caruurtaanu ku ogeyn guriga waanu ka weynay 9 bilood waanu weynay meel ay qabteen anagu ma garanayno laakiin gabadha dadku ku tuumaya oo ay sheegayeen oo tiri aniga kaxayay iyagoo miyi ku baabaado finish garoobay miyinu kuma baabiina iskuul bay dhigan jireen shantuba in loo soo celiyo oo gurigoodii lagu soo celiyo waxaanu nahay dadkii ay caruurtaasu ka soo jeeday reerkii family waxaanu nahay baadidoon wax weeye in caruur la yiraahdo ilma Maxamed Xuseen Yaasiin waxa la dhacay muddo 9 bilood ka hor waxa dhacay gabar la yiraahdo Hana Abuukar oo caruurta gurata oo lagu hayo xamar iminka sa warkaan ku helay xamar bay ku xiran tahay waxaanu codsanay marka walaalayaal hadaan arinkani sii qotan galo walaalahayga qiimaha qaayaha mudan ee Soomaaliyeed walaalaha Soomaalinimada ay ku weyntaa diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka ay ku weyn yihiin oo wax garadka aqligoodana taamka uu yahay kuwaas weeyaan kuwan la hadlaye walaalayaal
wuxuu sheekha xerta ama cabdixakiin ninka la yiraahdo ku taagtaagsanaya oo cadeymo ahaan usoo qaadanaya fiidiyooyo uu kala jaan ah uu isku soo rakibay oo asaga gacantiisa isugu soo rakibay aan laba u kala qaaday mar uu leeyahay haa ilmahaana la fakanaysa yacni ilmaha Soomaaliyeed uu ku hayay hadba laakiinse ay ku socoto cunug yar oo 3 bilood jira oo muluq ah siday walaasheen baraha bulshada qaybteeda beejaskeeda ay kala wadaagayso taageeraheeda ay u soo bandhigayso sidaad ogtihiin walaalayaal qofka hadduu tuugiya ama qiyaano hoos buu wax ka sameeyo muqalaska maanta dadka tahriibiya baraha bulshada ma dhaho dadkan tahriibiya ma fahanta ama wax aynkaas soo shabaa ma sheego ee la wadaagayso daacad ay u tahay ay ku wadaagayso ilmo yar oo 3 bilood jira oo dad cadaan oo gaala gacanta ugu jira maanta ee leedahay sidaan walaasheen ka dhageysanay dadkaas oo ayada la shaqeeyay samafalka adduunka ilmaha childrenkana wax u qabta dadkaas ay ayada la soo xariireen aadna ugu faraxsan tahay cunug yar aniga la siiyay markay leedahay cunug yar kama wada in ayada shakhsi ahaanteeda la siiyay la leeyahay gargaarka maadaama adiga qof Soomaaliyeed tahay nolol shaqeysa saas darteedna sidii macluumka adduunka loo adeegsado ama qof kasta dadkiisa lagu hago ay weydiisanaysa taageerayaasheeda walaalayaal inay dalka Suudaan qof jooga lagu xariiriyo dalka Suudaan qof jooga lagu xariiriyo dad jooga qoysa ilmahaas intay cudurada laga baxayo intay waxa xun laga baxayo intay diyaaradaha furmayaan oo cunugaas caafimaad aduu leeyahay adii wax kala wixii loo soo kaxeeyay Allahumma ista'aan ee doonaysa inay ku sii hagto dadkiisa kaas oo asaga ka dhigay wax la soo xaday wax la soo helaa jirto meeqa dalkeena haduu burbur noqday ilmaha dibadaha ku xoore maana ilaahay laga baqanin meenasan xisaab ilaahay inay sugayso ninkan uu warka haynin fiidiyowga labaadna insha Allah waan ila wadaagi doonaa uu kan aan hadeer nii soo wado uu ku rakabayo kan aan hadeer nii soo wadana walaalayga qaayaha iyo qiimaha mudan bal dhageysta Suudaan weeye kan kale ku rakabay oo halka fiidiyow ka dhiganaya meesha joogto waan isla arki doonaa dhageysi wacan idaawasho wacan qofkii yaqaano YouTube-kayga waa ka soo sheegay hadda markaan ka sheegay casharkan YouTube soo gelin doona halkan buu ku jiri doona insha Allah biidinilaahi kal Facebook ugu tagi doona waxaan hayaa waxaa laysiiyey cunug yar oo Soomaali ah ayaa laysiiyey maanta cunuga wuxuu jira nuuna walaalkay macaan soo dhawow cunuga wuxuu jiraa 3 bilood buu jira cunug 3 bilood u dhalan yahay okay 3 months u dhalan yahay muxuu soo dhawow cunuga 3 months u dhalan yahay cunuga ulaa laga soo qaaday magcila laga soo qaaday qolo anaga isla shaqeyna ay la soo xiriirto cadaan ah oo Suudaan joogto meeshaan haye iyo cunugii ana laysiiyey marka cunugii 3 bilood buu jira waxaan rabaa qof Soomaali ah oo Suudaan joogo oo Khartoum joogo oo cunuga inta diyaaradaha laga furayo oo wax ka hagaagayaan 3 bilood walaalayaal kan ila dhageysta bal fiidiyowgan uu ku soo daba rakibay oo ay leedahay Kenyan u socda aniga ahaanteedaba diyaaradaha xayiro ma laha ahaanteedaba aniga aadaye Kenyan waqti yaraan haystaaye Kenya dad Kenya igu xira ee taageereeda mar labaad ay ugu baaqayso waa laba clip aan islahayn oo jah iyo juh laga kala keenay Tokyo iyo America kala jira oo sidii fartaalub isku qasay isku xariiriyay ayuu rabaa cadeen in saasuu clipyada u jarjaraa hadeer ka horna waan arkaynay walaalayaal clip complete-kiisa aan dhageysanay baraha bulshada ku jira yaa uu goos ka soo qaatay baati go'an iyo yaa ninkii guriga gabadha iyo ilmaheeda laga soo badbaadinay maasha Allah bal kan ila dhageysta walaalayaal kan ila dhageysta haddii lagu yiraahdo ilma xagee wadaa khalad miya hana
اوكي صعب هاي كومنتير يكون مشغول ها حاول اسكالا ما هو اسكالا هاي هاي المها قادنا الصح ولا ما كم بخوف نيروبي جوجا هدا عرفتان بليز انا بليز يقول سو غير افرت الجوم ما كماسه وظف تعرف ما كنا والله تني سيدنا مش انا كل ما نسي كنت في دو والسهو يتين السهو وعقل انا السهو يتين اوكي شكلها يقول صعوتها صعو وفور ما سدح افر الشهر اللي احتضر سدد بري ما هيستا اوكي اوكي هنا سدد بري هيستا walaalayaal saad arkayseenba Soomaaliyo idilay awowgii ama aabihii qoyska aabihiisii iyo adeerkiisba oo awowgii labaad ahaa meeshaas waxaa ka arkayseen siday u hadleen cadeemihii aan keenay haddeertana waxaad ila dhegaysan doontiin muuqaal ahaan waxay tahay heerka gabadha ay ka dhalatay ama hooyada ilmaha ay ku maqan yihiin oo la maqan oo la mutahayo la raadinayo la baadi goobayo yaa heerkeedii aad ka maqli doontiin walaasheen kaltuun oo soo bandhigtay maantaba ha ahaatee baraha bulshada abtigii oo faahfaahin ka bixinaya iyo hooyadii gabadha dhashay ayeedii heerkii hooyada ama heerkii dhanka hooyada ee ilmaha ila dhageysta asoo muuqaal ah ya eela carruurteeda waan ka warhaya waa kan inanta walaalkeeda ku kaga waramaye hadii ila dhageysta mana waalan sacay baa laga yeesay ilaahu wixii dambiyo naga dhaaf ilaahu wixii dambiyo naga dhaaf ilaahu wixii balaa'ana naga dhaaf saadi magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Yuunus waxaan ahay waxaan ka hadlayaa arrinka nimanka yiri maama hana ama inanta hana waxa ay xatay oo ay naga xatay carruur iyo hooyadu waxaan leeyahay maqaalka ay ka hadleen maqaalkiisa baan soo dhigay ayaan jawaab celintiisa heerka ay leeyihiin waa xatay carruurta ay leeyihiin waa xatay anigu waxaan ahay abtigood ruma oo hooyadood la dhashay oo hooyadii aaba ay wada dhaleen سيدنا محمد محمود ولكن عبد القادر محمد محمود بنا أنا هذا سحر وحشك سحر وكتري صومالي فرا وحنا دي شيء يا صومالي ويني ملكستو شفتن عكستو أفك صومالي عكستو بقولش إن كانت أسوارك أي فيديو يعني فافيديو يعني قبل إسلام كاي إنسان كاي فافيديو إن تهمي بينا وعد عفوك اللي يوالله حدنا لما حدنا وعفو هيسن كري واينو مسؤوليتودي مid caafimaadiya mid dhaqaale iyo mid naxariiseed ba ay gabeen cid kale oo dhaantana ilaahay u gacan galiyay dadku way qaxaan ama cadowbay ka qaxaan ama cid ilaahay baday bay ka qaxaan caruurta iyo hooyadood way taxeen ha qaxaane waxay ka dhaxeen cid ilaahay mas'uulka uga dhigay waxa ilaahay quraanka uu ku yiri سورة النساء إلهي القرآن كله كله إلهي ترجعوا تريدن يتم مركبا إذن كان مسؤولين كذلك ترجعوا تريدن يتم مركبا إذن كان مسؤولين كذلك هادونين كل مسؤولية دي سكبوا يا إن مال أيكون حريص كهلا يانو بتكيسي ويجلس بقى يتكلم ويوجه سومن كلام بحال يشجع يعرفوا تسعروا لحدي معها هل كيشوفنا أنا كأجرنا annaga oo cafuta abtigooda oo inanta dhashay la joogtay hooyadooda walaashooda ayaa garanay way ku nabad qabaan maalintii ka qaxeen reerkii dhalay way ka wacan yihiin maanta caafimaad ahaan way ka wacan yihiin muuqaal ahaan way ka wacan yihiin nolol ahaan way ka wacan yihiin farxad ahaan way ka wacan yihiin waxaan soo xasuustaa markaan mas'uuliyad darrada Soomaali dhexdeeda ragga aan arko قبل واحد راوي لها كودي وحيري واحد تري أفاعل وحنوات كاستمارس أما هي قيلة جوتا وركيك وحن كوهسكو أفكيك كشيء مايو أسلوب تنقول مايو أبواشي وايا هيجا كذا العروق ذي
haddaadna ilaalin weydo asxaabta ku laaban weydo ilaahay ka yaali weydo anigu kuu quursan maayo dhagaar ku abaysan maayo agtaydana jiifi maysid haddaan beri kuu ilduufay haddeer ku abaysan maayo markay ajashaadu gaadho بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idin leeyahay waan idin sheegayaa inantaa la ceedaynaya ee leeleeya caruur bay qaadatay inaan waxba ka jirin inantu waa inan nadiifa caruurtana way ogtahay halkay joogaan ana waan ogahay oo hooyadooda oo inantaan dhalan hooye u ahay marka inantan waa la ceedaynayaa xalaaliyo waxay qaadato ay qaadatay toona ma jiraan marka inantu caruurta way u gargaartay reerka way u gargaartay way caawisay way wadaa si qurux badan baana wadaa u haysaa waanay ka hayseen halkii ay ku jireen aqal weyn baa lagu xiray oo laga maxbuuso maxaabis ay ku ahaa marka deedna inantii iyo caruurteedii way wanaagsan yihiin inantii iyo caruurteedii way caafimaad qabaan waana ila soo hadashaa warkeeda waan la socdaa waanaan ogahay wax la qashiyo wax kalena ma jiraan way noolyihiin waana caafimaad qabaan inanta la ceebaynayana ha laga daayo ceebayska waxna may qalin waxna may samaynin inan caruurteedii hooyadooda caruurteedii ayadood baan oo inanta nashaan hooyo u ahay oo Faadimo Cabdillaahi baa la yiraahdaa taasaan anuguna idiin sheegayaa inantaa la ceebaynayo dhaliisha lagu hayo laga daayo ceebta waxay qashayna la jiro waxay qaadatayna ma jirto safaaradda gacanta ku haysa safaaradda gacanta si walbaba ha ahaatee walaaleyga qiimaha iyo qaayaha mudan dhagiina baa ku maqasheen abtigii qoyska iyo ayeydii qoyskaba oo inanta hooyadeed ahayd siday uga soo hadleen arinta ay dhaheen waliba hooyada ay ku ashtakoota gabadheeda caybtaha laga dhaafo inanta ceebtaha la dhaafo laga dhaafo ma ceebaysana way ladantaa way barwaaqaysayin xulfada heerka nin iinaa ka dhaxaysana ka geli mayno haddaan nahay heer bulsho ama dadka bulshada ku jira haddaan nahay ceeb weyn bay nagu tahay samcadari laakiinse meeshaas waxay ka caddahay uu rabaa maanta inuu naga dhaadhicsiiyo inay dad islaameed iyo hooyo iyo walaal islaameed inay been meel ku soo fadhiisanayaan uu rabaa inuu caddeeyo ninka Cabdixakiin la leeyahay xerta sheekh la baxay inuu yiraahdo walaaleyga Soomaali buu mooda gadaalka gaar haddaan nahay manihin anaka dadka dhimanaashana caafimaad iyo xanuun ilaahay kala baxsho weeye hatoor hor ahaantii walaaleyga qiimaha qaayaa mudan laakiinse baraha bulshada dadka aqliga u saaxiibka ah inay wax ka dhageysanayaan warba uma hayama ninkan waa iska mataatacay waa iska duqoobay waa oday hungurigii kala fogaaday laakiin waxaan anaka dhammaanteen haddaan nahay baraha bulshada Soomaalida inta aqliga saaxiibka u ah waxaan leenahay ka waanto raali gelin buuxdana ka bixi haddaad haynin cadeyntii la soo bardhigo walaalow adeer abti ina adeer na soo dhig cadeyntiyo banaanka la imow oo keen ehelkii iyo qaraabadii gabadhii cideedii keen baraha bulshada keen ha soo hadlaan ha soo istakoodaan dadka gabadha maanta ka maqanta waa ayake ma aha dadka u dhaxday dadka ilmaha ka maqan yihiin waa 9 bilood caloosha ku soo sidatay iyo hooyadooda maanta hadlaysa ma aha marka walaalayaal walaaleyga qiimaha iyo qaayaha badan intaas iyo cadeynigu ahaatay ninkan mataatacay oo xerta sheekh la yiraahdana ilaahay toobadkeen ha warsado baraha bulshadana uu waalin beentana ha ka dhaafan kuwaaninaya ilaahay tawfiiqda ha nagu dilo ilaahay intii xun ha naga suuliyo ilaahay dadkeena xun ilaahay toobadkeen ha waxsadaano ilaahay ha soo hanuuniyo hanuun baan iyo ducaan sugu dareynaa dhammaantiina inta igu xiran walaalaha Soomaaliyeed inta Soomaali weyn magaca ku weyn yahaba oo ila wadaagta waxaan igu dhaafay salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh اندري ما عبرت ورك كيلو ما وررت ما كتبع ولا وريتي رحت ما حد كاشع ما تدمر بلا صفرت ورا جاجا ولا دمود بعدني والبنفتح رق والرمي بنركع دمر امس